Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 3 xigmadood oo ah xigmado aan idiin soo xunnay. Balse intaan u gelin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee na soo booqato, ha iloowin inaad kanaalka subscribe dhahdo kadibna furto gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada dambe. Qof aan fikirin waa dameer raacde. Qof inuu fikiraba aan awoodin kaasi waa doqon, laakiin qof aan ku dhiiranayn inuu fikiro kaasi waa addoon. qof kasta wuu kuu imaan karaa goortii aad faraxsan tahay ama aad guulaysatay, laakiin kuwa dhinacaaga jooga goortii aad niyad jabsan tahay ama fashil ku soo gaaro, kuwa ayaa ah saaxiibada runta ah. Tartanka dunida lagu tartamo mar walba waa mid sababa ama abuura cadaawad, dulmi iyo xadgudub. Kan aakhirase uu yahay midka keliya aysan intaas ka dhalan. Dadka qaarkii waa sida daruurta oo kale, goortii ay kaa tagaan waxay kuu noqotaa maalin qurxoon. tus xushmad xitaa dadkaan u qalmin maahan ka falcelinta dabeecadooda, laakiin waa sawirka bixin adiga dhaqankaaga qadarinta ku dhisan. Inanta caqliga badani ma raasata ninka xitaa haddii ay jeceshahay, waayo ugaartu ma eryata ugaarsadaha. Adduunyada waxa ugu weyn ee ku dhaqani waa aadanaha. Aadanaha waxa ugu weyn ee ku jirana waa caqliga. mar kasta oo aad ka shakayso ilaa heerka aad gaari karto, xusuuso ilaa inta aad soo socotay waxaad ka soo gudubtay dagaaladii qarsoonaa ee naftaada aad ka soo guulaysatay iyo dhammaan cabsiyadii aad ka soo adkaatay. haddii aad doonayso inaad goyso qof aad jeceshahay ama saaxiibkaaga, dhaawac kaga tegin. qofka qalbigiisa ina siiyey inagama mudna inaynu waran ku taagno ama ilbiriqsi oo murugooda sabab u noqono. maxaa ka fiican in qof aad kala tagteen uu soo xasuusto waqtiyadii fiicnaa ee aad soo wadaagteen. kulligeen waxaan dagaal kula jirnaa cadow qarsoon, kaas oo aan tilmaami karin, aqoon u lahayn, xitaa aan arki karin. laakiin guusha waxay ku xiran tahay sidaan u aqoonsanno iyo in aan fahanno midabkeeda. waxaa jira dadka qaar kuwa oo been u sheega naftooda, sidaasna aamina. dadka noocaas ah marka aad la kulanto maba ah in aad waqti iskaga lumiso wax ka dhaadhicintooda iyo la murankoodaba. laga yaabee sababta uu Alle noloshaada dadka qaar uga saaray inay tahay dhagartooda oo uu dheehday iyo inaysan u qalmin ka qayb qaadashada safarkaaga nololeed. adkaysi u yeelo inaad qaabashid diidmada iyo guuldarada, maxaa yeelay waa labadaan ugu necbahay. qof walba wuxuu doonayaa in la jeclaado iyo inuu guulaysto. jacaylkaaga badi, aaminaadaada yaree. wax walba siday u muuqdaan ma ahan, qof walbana run ma sheego. ilin walba oo da'dana kama dhigano inay murugoonayso. sawir walba oo qurux badanna kama dhigano in qofka ku dhex jira uu farxad haysto. marka aad nacdid waxa aad jeclayd waa calaamad ka mid ah calaamadaha muujinayso nasad ahaan inaadan deganayn, buuq gudaha ahna uu kugu furan yahay. inta badan ee badato daneyntaada waa inta badan uu dhaawacaagu bato, si la mid ah inta badan ee yaraato daneyntaada waa inta badan uu dhaawacaagu yaraado. waxaa cajiib leh in wax walba oo xun ay sahlan yihiin in la gaaro, halka wax walba oo wanaagsan ay adag tahay gaaristooda. quruxda muuqaalka waa mid aan la inkiri karin, waana xaqiiqda taalmaanta dunida. dadku waxay daneeyaan waxa muuqda, balse waxa mar walba qarsoon ayaa qiimo badan. quruxda qalbiga ayaa ka qiimo badan run ahaanta muuqata ee qofka, laakiin inta daneysa ayaa aad u yar. in aad wax nacdo waa kuu fududahay, balse kuma fududa inaad wax jeclaato. waaba hubaal in qof walba uu ku dhaawacayo marka ay noqotoba. ha ka fikirin goormee iyo sidee, ka fikir oo keliya qofka ku dhaawacayo ma yahay qof aad ka mudan tahay dhaawacaas. in aad iska ilatirto muuqaalada aysan araggaaga ku farxin, sida inaadan arkin oo kale, waxay qayb muhiim ah ka qaataan fariinta nabadeed ee dareemaha wanaagsan u dirayaan qalbigaada. waan u baahanahay mararka qaar inaan iska aamuso, sida inaan arkin oo kale. ujeeddadu waa hadallada aan naga daadegin ee nuxurka lahayn dareenka wanaagsan ee laabteenna. hawla dhaqmin qofka sida aad rabtid ee sida uu ku wajaho ama uu kaankaysado ula dhaqan. caqligaaga wuxuu abuuraa dhaqankaaga, dhaqankaaguna wuxuu abuuraa ficilkaaga, ficilkaaguna wuxuu abuuraa natiijada noloshaada. caqligaaga, dhaqankaaga iyo ficilkaaga oo si fiican u hagaagtaa
natiijada ka dhalanaysa waa nolol macaan oo aad ku raaxaysato, haddii kale waxay noqon karaysaa dhinac aan la jeclaysan. daacadnimadu waa hadiyad qaali ah oo aan laga filanaynin in aad ka hesho kuwa raqiiska ah. kan xun ficilkiisa iyo hadalkiisaba waa muuqdaan, kan wanaagsanse ficilkiisa iyo hadalkiisaba ma muuqdaan, maxaa yeelay caloosha ayuu ka hadlayaa isagoo ficiltamaya. waa sababta dadka sharta badani ay dunida magaca ugu yeesheen. naftaada shalaytada ka dhowr, u duceeteedana badi, quustana ka ilaali. qiimaha naftaada waxaad garataa markaad is cafiso, rajadaada wanaagsanna ay badato. xanuunka, dhibaatada, murugada dhammaan way dhammaanayaan, waxaana bedeli doona farxad iyo caafimaad. rajadaada iyo baryadaada marnaba yaysan hoos u dhicin. waxaa jira qof ammaana wax walba oo xun oo xumaan aan u arkin sida aad adiga u aragto oo kale. taasi waa kala duwanaanta iyo aragtida aadanaha, waana in laysku qadariyaa. naftaada waa inaad dhiirigelisaa saacad walba. haddaad aragtid wax dhibaya ama duleynaya, waa inaad naftaada la faqdo, iskuna fahantaan sida aad uga bogsan lahayd dhaawacyada uu waqtigu idiin dhaxal siiyey. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.